السلام عليكم أصحابتي قناة سود هذا رجينا في عهدنا حالتنا dhaytahay kusoo dhawaada videogeena maanta saad wada aragteen ba ama aad wada ogtiin dhamaantiina anigu waxaan leeyahay laba channel mid Soomaali ah oo kan ah iyo mid kale oo ku baxaya luqadda Englishka su'aasha isweydiin kartaa waxay tahay sabab aad English channel u sameysay ma luqadda taqaana maxay tahay ujeedka ka damacsan tahay inaad channel English sameyso macallin English ma tahay mise qof ku caawinaya jira intaanba waa su'aalo laga yaabo intiina badan inay isweydiinayaan waa macquul marka videogan aad uga boohan doontaa daawasho wanaagsan sideedaba qofka bani aadamka markuu rabo inuu wax isku dayo fikrad ayaa ku soo dhalanaysa markuu rabo inuu wax sameeyo inta badan ficilka waxa ka horeeya aragtiyo iyo fikrado fara badan oo kala duwan inta aadan horta waxa banaanka aadan keenin ba maskaxda ayaa kula dagaalaysa marka koowaad fikrada kugu soo dhacaysa aqsigeeda waa iimaanay ma dhici karto ma dhici karto markii koowaad aniga ay soo dhacaysay inaan English channel aan sameeyo mucjiso ilaahay nafteeda ayaan ku qoslaayay adiga iyo channel English waa macquul ma ahane horta ma jirto cid caawinaysa mana ihi macallin English walajeedka iyo hadafkii aniga ayaa ku sheegi doona wax walba horta qofkii fahmaya luqadda Ingiriiska wax walba xaggaas ayaan ku sharxay meeshaas ka soo daawado linkiga description hoose ayuu yaalaa channelka Ingiriiska hada subscribe u hayna hada subscribe sar description hoose ayuu yaalaa SG Surprise Generation kusoo beer community cusub inta kale daawasho waan videogan arinka koowaad anigu luqadda Englishka waan jeclahay anigu luqadda Englishka aad u jeclahay luqadda anigu jeclahay markii aan soo baranayay meelaha laga barta ayaan tagay privateska collegeska laga barta ayaan sii tagay bal adii muddo waa soo bartay fahan igu filan ayaan ka qaatay marka hadafkayga wuxuu ahaa marka aniga English hadaan baranayo hadafkayga wuxuu ahaa inaan u hadlo as a native speaker inaan fahmi karo qof native speaker haduu ila hadlayo qof walbo English baranayan ulajeedkiisu waa midkaas inuu fahmi karo ama uu la hadli karo qof native English speaker ah anigu hadafkayga midkaas ayuu ahaa horta fahna deel qof walba waa dadaalkiisa iyo sida uu asigu wax u rabo aniga qaabkan wax u rabay ayaa waxay ahayd native English speaker amal inaan u hadli karo waliba ka basii fiican marka fikir iyo aragti dheer kadib maadaama aadan sida meelaha qaar aan inta badan aan laga helaynin naftaada adigu wax isbar adigu waxaad jeceshahay ku dabaq English ahaan fikrad noocaas ay igu soo dhacday wax walba anigu aan jeclahay ayaa marka waxaan sameeyay waxaan ku dabaqay luqadda Ingiriiska say ila soo socotay qorshahan ay ila imaaday oo ah inaan channel ba aan ka sameeyo oo ah luqadda Ingiriiska ku baxaya waa معقول ماني markii igu horeysay anigu ugu soo dhacay fikradan aad baan u qoslay adigu iyo channel English macquul ma ahna sidaabo ma dhici karto muddo kadib fikir dheer kadib iyo baaritaan dheer kadib indha adeeg abo waxaan go'aansaday no face inaan noqdo hawsha aan abo si aan u hormariyo awoodda ku hadalkayga iyo fahankayga luqadda Ingiriiska iyo aqoonta aan u leeyahay marka baaritaan dheer kadib waxaan go'aansaday inaan hawsha abo aan bilaawdo qorshaha waana bilaabay waana sii socdaa baad u jeedaa intaas oo sii maraya inta adeeg heerkaas gaaray waa sababta loo dhahay madaxdeega mar qaar waa fiican yahay beena ma inta kadib waxa kale igu soo dhacday fikrad aad aan u la cajabay ayaan helay oo laf dhabar xitaa u ah inaan bilaabo channelkaas Ingiriiska ah fikradaasina waxay tahay learn by teaching others baro adigoo kuwa kale sii baraya waa fikrad ugu fiican oo qof wax ku baran karo waa fikrada ay isticmaalaan macallimiinta macallinka wuxuu sameynayaa maadada asoo xoogaa fahanyar oo ka haysto ayuu sii gudagalayaa macallin ka noqonaya mar walba uu wax sii barayo si uu guda jiro ayuu ku sii baranaya marka fikradaas markaan helay ayaan boqolkiiba boqol ku dhiiraday inaan hawshan bilaabo uma baahnid wax walba aad dhigaysid ama aad soo gudbinaysid boqolkiiba boqol inaad taqaanid fahan fiican hadaad ka haysatid gudagal ku guda jiristaas ayaad boqolkiiba boqol ku baranaysaa aqoonta inta badan waxa laga helaaba in the process hawsha intay socoto wax walbana hadii aad u baahan tahay inaad ka sal gaartid bilow dhaxgal waxay arag maana banaanka adigoo ka taagan waxba ha xukumin gudagal soona arag xaqiiqada dhabta meesha taala fikradan markaan helay ayaan ku dhiiraday inaan bilaabo hawshaas aniguna aan ku sii barto dadkana intii u baahnaa aan uga sii faa'iideeyo waxaan la yaabay nolosha qofka bani aadamka hadii ay jirto ulajeeda ama wax adigu ka guuxaya aad rabtid inaad sameysid ama aad gaartid kuna howlan tahay wax walba u baahan tahay way isku ka soo furfurayaan fikrad haday ahayd way iimaanaysaa
caqabad hadday ahayd way tagaysaa, dhibaato jirtay hadday ahayd xal baad helaysaa, duruuf ku haysatay hadday ahayd waad ka baxaysaa. wax walba way isfurfurayaan si tartiiba adigoona dareensanayn. waa sababta loo dhahayo noloshaada hadaf ku xir. videoga aan usoo laabanay muhiimadeeda waxay tahay aniguna Englishka inaan kusii barto soona gudbiyo wixii karaankayga aan tabartayda aan karo. waan ogahay aniga Englishkayga tayo saasa ma lahan, high quality ma ahan, balse muhiim ima ahan. hadda haddii bilow wax walba bilow ay yihiin, bilowgan hadda aan kusii socdo ayaan kusii baranaya step by step. waxaa dhici doonta maalin aad kala fahmi weyso qofkaan hadlaya ma aadan baa mise waa qof English u dhashay, native English speaker. insha Allah maalintaas ayaan sugaya. marka hal arin ogaada bal channelkaas Englishka waxaan rabaa inaan ka dhigo worldwide ama international channel. micnaheega wuxuu yahay qof walba luqadda Englishka fahmaya inuu daawan karo. muhiim ma aha kalarka uu leeyahay, muhiim ma meeshuu joogo. qof walba luqadda Englishka yaqaan inuu daawan karo ayaan rabaa. ma garanayo inta ay u qaadan doonto heerkaas inaan gaaro. cadaan iyo madowba ay daawanayaan ma heer 5 sano ama 10 sano ma 8 sano, I don't know. laakiinse anigu intii karaankayga oo dadaal ah waan bixinaya insha Allah. wax ma reeban doono. wixii dhici lahaa way dhacayaan, laakiin wixii dadaalkayga insha Allah ma yaraysan doono. midkaan Soomaaliga iyo midkaas Ingiriiska isku mid ma noqon karayaan sida ila tahay, sababtoo ah midkaan Soomaaliga kaliya waxaan la hadlayaa Soomaalideena, dadkeena Soomaaliya. midkaasna waxaan la hadlaynaa waa adduunka. fikirka iyo cabirada iyo wax anigu aan ku hadlayaan waxay u baahan yihiin wax miisaaman inay ahaadaan. waayo midkaan anaga Soomaalideena kaliya ayuu khaas u yahay, waayo luqadeena ayuu ku baxayaa. videoyadana inta badan isma qusayn doonaan, isku aragti ama fikir ma ahaan doonaan. yacni wixii islahaado waa caadi, wixii kala doonaadana ha kala doonaadaan. marka videogeena maanta waa inaga intaas. waxaan rajeynaa inaad fahanteen aadna garab istaagi doontaan insha Allah. wada shaqayn wacan. subscribe saar labada YouTube, midkan aad daawanaysid kowa subscribe saar, midka kale linkigiisa hoose ayuu yaalaa. subscribe saar, siina share garay. qof English yaqaan haddii aad taqaanid ku sii share garay oo sii gaarsii. aniguna way caawinaysaa, adna aad baad ugu mahadsantahay. like saar videoga, subscribe saar channelka, daawashadana aad baad ugu mahadsantahay. siina share garay haddii aad karto, waxay naga caawinaysaa inaan si fudud u korno. aad ayaad u mahadsantahay. waxaa inoo ballanaa videoga xiga. maca salaama.